islaamkii koonkanugu saxnaayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى هيدي بركة ولا ليال مال المالمها كم إذا النبي عليه الصلاة والسلام سقوا صحابتي سلف الدية أيوه كل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الباب كا وحكسوا قريد دونا إن أهل الجنة كم إذا أي الباب كسوا قريد دونا وحكسوا قريد صحابي أي الباب كسوا قريد صحابي الباب كا أيوه كسوا قريد وتكذي وسكبح سلام عليك إلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكيبو كعلي وحول الباب كا وحكسوا قريد دونا إن أهل الجنة كم إذا أي كسوا قريد دونا صدح maalmood oo isku xigta oo isku mida ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay ninkaasi inuu yahay yaani in ahlu jannaha kamida albaabkana uu ka soo gali doono saddex maalmood markay isku raacday oo maalin walba marka uu nabigu kaleey salaatu wasalaam uu yiraahdo albaabka waxa ka soo galay in ahlu jannaha ninkii uu ka soo galayo ficilkii uu sameeynayo laba ragcadood intuu tukado iska baxayo ayaa saxaabi Abdullah ibn Umar ibn Aas la yiraahdo wuxuu go'aansaday inuu ogaado amalka ninkaasi jannada uu ku mutaystay wuxuu daba galay hoyga iyo meesha uu ka degan yahay inuu soo ogaado ayuu daba galay uu daba raacay wuxuu soo ogaaday halka uu ninkaasi uu degan yahay wuxuu go'aansaday inuu marti u noqdo oo maalinka iyo saddex maalmood uu ninka uu la soo joogo si uu ogaado amalka inta leeg ee nabigu makhraatiga wakacay ninkaasi inuu jannada uu ku mutaystay Abdullah ibn Umar ibn Aas marti ayuu noqday saxaabigi ayuu la deganaa صدح maalmood ayuu la joogay wuxuu leeyahay amal aad u weyn kuma arag ninkaas inuu salaatu leel habeen oo dhan u taagan yahay inuu yaani maalin oo dhan uu sooman yahay amal yaani weyn kuma arag salaatu leel uma kacayo habeenkii yaani maalin oo dhan ma soomana waa nin iska caadiya cibaadadiisa caadiga ayuu iska wataa wuxuu yiri habeenkii marka uu ninkaasi uu dhinac isku rogayo ee uu hurdo marba dhinac isku rogayo ilaa yaani habeenka marka uu soogayo ilaahay buu xusay subhanahu wa ta'ala dhikriga ilaahay uu la iimaanaya markii ay muddadii u dhamaatay Abdullah ibn Umar ibn Aas ayuu wuxuu go'aansaday inuu yaani ninkan uu u sheego walaalkiya yaani waqtiga iyo yaani waxa uu ku mutaystay jannada uu ku mutaystay uu weydiiyay wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu kaaga maqraati kacay inaad ahlu janna aad tahay saddex maalmood oo isku xigta ayaa nabigu kaaga maqraati kacay inaad ahlu janna aad tahay waa maxay amalka aad ku mutaysatay yaani inta leeyahay in jannada ku mutaysatay waa maxay saxaabigu wuxuu ugu jawaabay wuxuu yiri ma sameeyo ilaa waxaad igu aragtay amal mahaani inaana salaatu leeyahay kacay waad aragtay habeenkii inaan yaani maalin aan soomanayn wada aragtay in aan yaani amal weyn oo aan janna ku mutaysto inaan la iimaan adigu wada aragtay wuxuu ku yiri Abdullah ibn Umar Aas uu iska dhaqaaqay isagoo sii socda ayuu yeeray wuxuu yiri kaalay waxaan u malaynayo in janna aan ku mutaysto waxa ay tahay ma seexdo habeenkii oo ma hooyada habeen ilaa isagoo qalbigaygu saafi u yahay mahaane ma seexdo qalbigayga anoo qof walaalkay oo bilaaadana wax ugu haya ma seexdo Abdullah ibn Umar ibn Aas wuxuu yiri kaaweeye kaad ku mutaysatay jannada nabiguna kaleey salaatu wasalaam kaaga maqraati kacay inaad janna ku mutaysatay xadiiskaasi walaalayaal wuxuu inoo tilmaamayaa in qalbigeena aynu saafi ka dhigno walaalaheen aynu iska saamaxno habeenkii marka aynu hooyanayno inuu caafis la nimaadno cidii ina dulmiday cidii wax inoo geysatay aynu iska saamaxno inuu arrinka aynu la nimaadno inaynu janno ku helayno janna inaynu ku helayno ilaahayna subhanahu wa ta'ala inuu naxariisanayo xadiiskaasi wuxuu xasuusinayaa walaalayaal حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة وسورني صحيح يعني صحيحين كقصنا ها تعرض الأعمال أعماش أي الله بندقى إلهي سبحانه وتعالى مالك السو سنين يا مالك السو خميسة أعماش أي إلهي سبحانه وتعالى الله بندقى والله ضافا ذنوبتي صغائرتها أي الله ضافا لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا قفك السو مسلم أو إلهي سبحانه وتعالى عدنا أن نشرك يا إلهي أشرك يلين عبادة إلهي سبحانه وتعالى أن نشرك يلين قفك السو مسلمة إلهي سبحانه وتعالى وعودا بدافع مالك السو خميسة يا مالك السو سنين إلهي سبحانه وتعالى وعودا بدافع ذنوبتي صغائرتي إلهي سبحانه وتعالى وعودا بدافع إلا لما قف ما هاني لما ذا قف أو عروشة وحسوها هي لما ذا قف وحي لي هذا وكالية أنت أيسي سامحيان مركا أيسي سامحان أي ذنوبتي ولا دافعيا وحيولا حديث تاسنوت الماميان إيه نسي سامحنا إلهي سبحانه وتعالى درتي سو سامحنا قلوبتنا أينو صافي كدقنو مركا أينو هوينا قريهنا وهوينا أينو نقانا ضد قلوبتoodu ay saafi tahay waxayna ku mutaysanaa jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf ayayna ku mutaysanayna arrinka aynu ku dadaalno Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayni barakeeyo assalamu alaykum islaamkii koonkanugu saxnaayo.